بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. مدن قدوميها حسبك ديمقراطية شعبك الصومالي دا إثيوبيا مدن أحمد شده مدن مدحوينها دولة ديغانكا صومالي دا إثيوبيا مدن مصطفى محمد عمر مدن مدحوينها كحيجيكا دولة ديغانكا صومالي دا إثيوبيا مدن هذا فارح هذا كي ويهوس مريو فارح إيوه قرتي دمان مدن يال يمروين وقاسيدا سلابين تا آبياشا وديال دقميتكا هويويكا داليرتا ويلال إيا قبدبا قبدو إيا قنبوليبا دماتيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتا كدب والعليال أدبا نوشر في سين أو سيدا نوشر دويسين نيدا نوغو دستين إيا مسكعدا نوغو صعبتوتين أيان نوصل بابخلون مقعدي لكاليري اللولي بدو بهاتستين والعليال آد بدو بهاتستين سلامتا يدا كدب وإمكان كوكوبان تي وفتقا RPP حسب الحاكم كجمهورية جيبوتي أوصى إقمدي إنه وقعيب قلان شروينها طبنات حسب الديمقراطية شعبك الصومالي إثيوبيا وحن الليق راعيني ودون يا إنا ديجا قدونتين أو تسفي عن إيجا قدونتين سلام قاليا علوس هاي كده هانتهاي والعلمو همبليو هاي كده هانتهاي أون نيجا سيدنا مدحوينها جمهورية جيبوتي مدحوين إسماعيل عمر جيلة إسلام مركانا قدوميها حسب RPP حسب الحاكم كجمهورية جيبوتي وعندنا إن نوجا قدوتي صلاة وانغو قالي وفريق قالي أويان وعكلو الصلاة تا أنا كدعي نوسوكي فري حقيقها قود حسبك RPP مدن إلياس موسى دوالي إسلام مركانا وزير كدقالها قرنكا يمالية جمهورية جيبوتي intaasi waxay ahayd salaamihii la noogu soo kiin dhiibay imikii haatan waxaan u gudbayaa salaamo annagu aan u gudbinayno dhammaan axsaabta iyo waftiyada kala duwan ee matalaya ee shirkan ku matalaya qoomiyadaha kala duwan ee kala dega daafaha wadaweynaha Itoobiya haddii aan mid u sheego walaalayaal axsaabtaasi iyo wufuuda ka bixi maayo waan ku daay waqtiga igaga dhici waan awoodaa inaan mid u sheego laakiin waxaan ka xusuun xusbiga EPRDF oo aan maartay cilaaqad qoto dheer aan leenahay waxaana daba tahay walaalayaal dulucdii أنا هالكانون نبني وحويان وحنام بوغدا ونوغب بحيطان ماذا شافر ديني إنا تصارتين عكتا إنا تصارتين دبدي أما توبتي أما طريقي إسبدلك يهرو مركا إنا عكتا صارتين بانو بوغدا وحلقوا موجيي سودان بالغوا موجيي مجاجلا لغوا موجيي قبل ما رأيته هسا لقوا موجيي خدبد هالك لقى سوجديا لقوا موجيي التاسبوع كم مراكعين يسبدل ككذا عاي دولة ديجان كصومالي دا إثيوبيا إيوه هالك عاد هيكسن إنسان هيكتين إيوه هميلة عدلاد هنا كسحتان وعن مركلين لنا همبليو إلهي سبحانه وتعالى
tubtaad ku socotaan hayniga dhigo tub bilaa turxaan ah tu nabadgelyo leh tu ma garanaysaa aad ku liibaantaan ood ku najaxdaan waxa aad maaragtay noo farxad geliyey madashani inay wada fadhiyaan maanta mas-uuliyiintii dowlad deegaanka mas-uuliyiintii xisbiga iyo mas-uuliyiintii ururka ONLF oon awal is arki kari jirin iyo shacbigoogii inay halkan ku wada dhayin maanta wax ilaahay loogu mahadnaqo waxaan haddaba leenahay walaalayaal dariiqan waa kaasoo cagtaad saarteen haasoo yeeshee dariiqu uu dheer yahay uuna turxaan badan yahay dardaaran baan ini siinaynaa waxaan leenahay u dhabar adayga waxaad muujisiin dhabar adayg iyo samir badan iyo dulqaad badan iyo isku tanaasul badan haddaad intaa la timaadaan unbaad ka gudbaysaan waxaa la yidhi walaalayaal nabaddu haddii nabad la waayo bini aadmigu hadduuna nabad hayn nololi ma jirto annagu taasaan rumaysanahay reer Jabuuti sidaa daraaddeed nabadda iyo midnimada ku fara adaygnaa min markii aan gobonnimada qaadanay 77kii ilaa maanta waxay mas-uuliyiinta iyo madaxweynaha iyo xisbul xaakimkuba awoodda saaraan nabadda iyo midnimada ilaahayna uu nagu guuleeyey waanan haynaa guusha waxaana doonaynaa maadaama aan ku guulaysanay inaan walaalaha iyana aan farno oon u gudbino ilaahay waa ka yidhi muslim ma tiidin ilaa waxa aad jeceshihiin ama aad ku guulaysataan aad walaalkiina u sheegtaan waxaa la yidhi walaalayaal nabad baa naas la nuuga leh nabad baa caana macaan nin kale wuxuu yidhi nabaddu sow sahaydaada ood sidata uun maaha sow godobtu surinkaad martaba sabab qarsoon ma aha waxa weeyaan walaalayaal nin bay beeri doontay beel Soomaaliyeed baa doontay nin inay madax ka dhigtaan waxa la yidhi ninka han jarabno xigmad bay lahayd raggii hore aabii baa la soo qabtoo la garbaduubay oo la xidhxidho lagu hor uleeyey odaygii u wada kab xararay ninkii farma qaadin aroortii dambaa lagu soo kalaho war bal aabba ka warran baa la yidhi wuxuu yidhi aabbahay xali caata ma seexan anna urku taalle ma seexan buuri sidii buu ku helay wadiifadii ninkii sidii buu ku helay waa jarrabaad dulqaadkiisaa la eegayey dhabarkiisaa la eegayey wax isku xidhmada isku xidhista ayaa la eegayey waxa weeyaan haddaba walaalayaal sidii haddeer wiilkii halkan joogay ee mikrofoonka igu soo dhawaaw yidhi ummad quraynu nahay isku dub iyo isku diir iyo isku diin iyo isku af iyaynu nahay waxayna kala qoqobay weli waa xuduudaha unbayna kala qoqobay daraarta halkaa aad joogtiin ay nabaddu faraha ka baxdo ee qoomiyadu isku dhacaan ee dad barakaco ee khasaare maal iyo nafiba ay dhacaan annagu urku taalla ma seexano sidii ninkaasoo kale inninka uun maahina intaa jaarka iyo jiiraankeenna ee isku wada dub iyo diir ah sidaasaan ka wadannahay halkan hadday tahay iyo walaalaheenna galbeedka wada dega waad garanaysiin labada qoomiyadood ee galbeedka wada degay walaalaheena sidaasoo kale iyo kana iyaan uga urku taalloonaa kolkaa walaalayaal waxaan jecelnahay horumarkiina ka soko nabadda inaan wada adkayno la isku kaashado heer xukuumadeed heer shacbi iyo heer xisbiyaalba la isku kaashado intaba la isku kaashado oo nabadda la wada adkeeyo waayo marka aw jaarkaagu nabad yahay iyadadna waxtay haddii jaarkaaga ay nabaddu faraha ka baxdo adna waxba ma batid dhibaato way ku soo gali dhibaatada halkaa ka dhacday baa maangad la soo jeexi oo lagu soo gelin kolkaa nabaddu walaalayaal meel qura un in lagu adkeeyo maayna waa inaan gebi wada adkaysanaa dhaqdhaqaaqa halkaa ka jira waa ninka arkaya isbeddelka ka jira dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya inkastuuna halkan ku koobnayn
guud ahaanba waddanka Itoobiya caam ahaanna geeska Afrika dhaqdhaqaaqa iyo isbeddelkaasi uu ka jiro inaan dhammaanteedba diyaar wada ahaano inaan madaxa hore ka raacno in cid walba wixii ay ka qaban karayso iyo wixii ay ku taageeri karayso iyo gacanta ay ka geysan karayso inay cid walba ka geysato walaalayaal waxaan u maleynayaa hadalka waa nigu badiyay waxa la yiri hadal iyo hilinba hadaan laga hadhin ma dhamaadaan way ka hor soconayaan hadalba hadal uu ku dhiibi dawladana dawba uu ku dhiibo weligiiba oo sii socono kolka ina soo murtiyeyno halkan saaka Sheekh Axmed Baad inooga duceeyay ilaahay ducadiisii ha inoo aqbalo annaguna waan ka daba ducaynaa ilaahay ha inoo adkeeyo nabadda ilaahay ha inoo adkeeyo hadeer waxa kale la sheegtay in abaaro dhulka ka jiraan ilaahay abaartaana si degdeg ah ilaahay ha nooga dul qaado ha noolaato Itoobiya ha noolaato dawlad deegaanka Soomaaliyada halka ha noolaado shacbiga dimuqraadiga xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ha noolaado dhammaanba shacbigaasina ha wada noolaadaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guul iyo walaal أدبو ما سيهي سليبان ظاهر بلا جمهورية جيبوتي حزبك RPP أدبو ما سيهي يا RPP بارتي توكاين برو أتو سليب طاهر جيجار جنا مسجنا لنا أن وحا كلون يغني نلوشوغون ويرينا مسؤولين كسعودي الصومالي لان وحا كسعودي حبنا بدن وحا